eegaya shuruudaha ay eegaan koob waxa ka noqonaya 12 shardiyo golaha deegaanka loo dhigay in lagu eego murashaxiintooda 12 kaasi markaanu eegno maanta maayarka sultakaan ku qiyaasno laba kamid ah hadii si daacadnimo loo eego way qabanayaan koow waxa uu dhigayaa qodobka 18aad ee xeerka doorashooyinka qaranku wuxuu dhigayaa murashaxiinta isu sharaxaya golaha deegaanku 12 shardi waa inay helaan waxa kamid ah waa inuu qofka murashaxu yahay xilkas waa inuu yahay oo xil uu hore u soo qabtay uu jiro uu ka soo bixi karaa xilkiisa waxaanu ognahay maanta mas'uuliyad xilkii waahiyay maxaa sultaanku inuu ka soo bixi in kale idinka ka jawaabaya laakiin waa su'aasha u baahan inay ka jawaabaan gudidan soo sharaxaysa ee ta keentay ee kulmiye waa inuu su'aalaha inuu ka jawaaban weeyaan inuu xilkas yahay waa su'aal aad u muhiim ah xeerkan uu dhigaya waxa la mid ah shardi ka dhigaya waa inay runtii dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa toosan tahay shardi buu ka dhigaya shardiga xeerku sheegay waxa weeyaan waa in uu leeyahay hanti mood iyo noolba waa inuu leeyahay ama mid kamid waa inuu leeyahay hadii uu leeyahay marka maxaa shardigu yahay xeerku wuxuu sheegay qodobkiisa 17aad wuxuu sheegayaa hantida uu leeyahay waa inuu soo qoraa maayarka waxa looga fadhiyaa hantidu leeyahay oo dhan inuu soo qoro haduu maanta murashax noqonayo hantida markuu soo qoro gudidu waxay awood u leedahay oo xeerku uu siinaya inay baaraan hantida marka hadii la ogaado hantidiisa inay tahayna dan waa sax hadii uu qaranku yeeshana kiis kale noqonaysa marka koow jaranjarada koowaad ee maayar sultaanka hor istaagaysa waxa weeyaan in gudida xulistu si sax ah ay u eegto shuruudihii inuu buuxiyo inaan buuxin iyadoo qodobka 18aad adeegsanaya qodobkaas shuruudaha ku xidhaya jaranjarada labaad haduu jaranjarada ka soo gudbo maayar sultaanka maayarku ka soo gudbo jaranjaro labaad buu xeer ku dhigay qodobkiisa 17aad baana dhigaya xeerka doorashooyinka qaranka muxuu leeyahay hoggaanka xisbigu waxa waajib ku ah ma xataa waxa ikhtiyaari ma waa waajib waxa ku ah koow murashaxa la soo xulaaya la keeno waa inay marka ugu horta si wadaniyeed ay ku dheehan tahay ay u baaraan maanta waxa looga fadhiyay hoggaanka kulmiye oo madaxweynuhu koow ka yahay waxa looga fadhiyay wadaniyeed siday ku dheehan tahay inay u eegaan ay u baaraan maayarku xaq ma u leeyahay inuu mar labaad iskeenayo in kale shuruudihii ma buuxinayso mid kale si wadaniyeed ku jirto inay u eegaan qodobka labaad oo shardi ka dhigay waxa weeyaan waxa uu leeyahay waa inay hubiyaan shuruudihii loogu talagalay xeerku sheegay 12 shardiba inuu ninkaas buuxiyay qodobadan sheegnay ka hormeen waxa kamid ah qodobka xilkasnimada iyo mas'uuliyadda inuu ka soo baxay waa qodob meesha yaala qodobka kaleeday ee shardi tahay inuu eegaan waxaana xeerku qodobkaas u dhigay waxa weeyaan waa inay hubiyaan in mas'uuliyadda uu hanan karo oo gudan karo مسؤولية لو ديبايو ما غودان كرا waxay nooc mas'uuliyadii hore loogu soo dhiibay ma gutay mise ma gudan waa su'aal u baahan inay ka jawaabaan hoggaanka xisbiga ay ka jawaabaan qodobka afraad uu shardi ka dhigay wax weeyaan waa in ninkan murashaxi uu runtii sumcad u keeni karo maamus u keeni karo qaranka Soomaaliland iyo xisbigaba maayarku maanta ma u keenay qarankeena sumcad iyo maamus ma u keenay وسؤال بان إنه هجانك حزب جاء صاش راحي إيه مرشح بنويه مدحونه كوكيه هاي وأي كتشوا بنا أي تهوية أو مطوع حتى حرك شروطها صدقية هدي ماركو أنت كسو جدبو أي صار عفيان مثل هذا قضاء صدحة تضبطنا حرك الدورشان كوديجية أو لوجو قبنايا أو محول ليه هاي وح يجنا ساسو كلا لجربا كوميشك الدورشان كقارنكو إن قف بيان مرشحني مبوحي شروطه الله بحنا وين مركا كوميشك قبطان oo waliba iyaga baaris gaari leeyahay oo xaqiijiyaan hantidan uu leeyahay xaqiiqa ma tahay isagu leeyahay marka loo hanti uu leeyahay shartu waxa hanti qado ma leedahay mise qaranka iskale mise waad ka dhacday waa wax la hubinayo waxa kaloo shuruudahaas oo dhan iyaguna eegaan saddexdaas jaranjaro qofka ka soo gudba waliba saddexdaas jaranjaro waxa ku sii dheer xeerku sheegaya oo qodobadiisa 7aad iyo 17 tilmaamayaan waa inuu xeer nidaamiye uu jiro oo xisbigu sameeyay oo shuruudahaas oo ku cad yihiin oo lagu kala saaro murashaxiinta waa qodobada aadka u muhiimka waliba xeerku sharti kale soo dhigaya marka qofka la soo sharaxayana waa inay ku jirtaa daahfurnaan iyo in laga wada qayb qaato oo aanu madmadow iyo musuqmaasuq aanu galin si cad oo hufan qofka waa in badal la soo dhigaa shuruudaha loo eega la xaqiijiyaa mid inuu buuxiyay cadaymihii la keena xeerku wuxuu aad u adkeynaya qodobkiisa 17aad wuxuu adkeynaya cadaymihii la keeno maha maayarku uu shuruudii waa buuxiyay mid kasta cadaynteed baa la rabaa haddii hanti noqoto haddii xilkasnimo mas'uuliyad uu qabtay noqdo inuu ka soo baxay wixii cadaynayay waxaasuna cadaymahoodii oo dhan baa la rabaa waxaasoo dhan ma kaanu eegno
run ahaantii walaac weyn baa laga muujinayaa maayarku inuu maanta inuu issharaxo iyo inuu shuruudihii buuxiyey walaac weyn buu bulshada Soomaaliya ka qabta ana shakhsiyan aan ka qaba saraxatan anigu shakhsiyadiisa waxba ka sheegi maayo hatta muxuu ahaay musuqmaasuq ku sheegi maayo sababtoo waxaan anigu indhaha aan ku taabtay oo arkay mooyeen wax kale aan qofku sheego xaraan beegato laakiin xaqiiqadan eegay waxaan shuruudahan ma buuxiyey shuruudahaasi waxa u baahan in si mas'uuliyad ku jirto loo baaro oo la sheego muubic mise muubixin waxa aniga ay muuqataa haddii maayarka uu sidaa isku sharxo la sii daayo waxa ay muuqataa siyaasadii Soomaaliya inay isbedelayso oo waxa isku bedelaysaa siyaasadda xukuumadda oo Muuse Biixi Cabdi uu hogaamiye madaxweynaheenu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo barak waxa weeyaan siyaasad bay hadee bilowgay inuu korosho kala dagaalamayo laakiin maanta haddii maayarkii iyo oo murashaxa uu la soo daayo hogaanka xisbigu soo daayay oo madaxweynuhu yahay hogaamiye ugu weyn ee xisbiga waxa tilmaamaysaa in laga leexdo siyaasadii hore ee had la dagaalanka musuqmaasuqa oo loo leexdo siyaasadaha kale waxa kale walaac weyn aniga ay gelinaya doorashada soo socota lafdigeeda sida ay noqonayso systemkii sidoo noqonaya sababtoo waxaan arkay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo agaasimihii haystay muxuu ahay komishanka doorashooyinka qaranka madaxweynuhu dikreeto ku magacaabay oo xilka ka qaaday iyadoo qodobka 16aad ee xeerka doorashooyinka uu dhigayo komishanka doorashooyinka way u madax banaayeen in shaqaalahooda qaataan agaasimo dhowr iyo toban sano soo maamulayay 20 sano oo fil ku dhawaadinaayay soo maamulayay oo inta aan ku yimi maxay system saxana ku yimi in dikreeto laga qaada iyo laftiisa su'aal sharciyo kale oo madax banaanida komishanka tilmaamaya ayaa cadaynaysa marka runtii waxaan rajaynayaa in runtii dariiqa wanaagsan runtii aynu raacno sharciga inoo qorana sideeda hadaynu u raacno wixii aynu ku heshiinay waxba inaga xumaan maayaan laakiin haddii madmado iyo qof jeclaysi iyo qabiil iyo waxaas hadayna qabtaan waxa way mushkilad bay noqonaysaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweynaha dalkeena runtii anigu runtii shakhsiyan wanaag badan baan u hayaa laakiin waxaan rabnaa sharciga waa kii ku adkaa sareynta sharcigan wax badan ka sheekayn jiray in sharciga sidiisa loo raaco oo ninka xildhibaanka maaha maayarka oo kaliya xildhibaano badan oo kala jira imika oo laftigoodu shuruudaha aan buuxin oo hadda taagan kuwa laftigoodu waa in shuruudaha lagu qabtaa oo shuruudaha lagu adkeeyaa kuwaas aan qaba in wax lagu kala saari karo taas waxay noo soo saaraysaa dadkeenu rabnay in caasimadda inoo maamulaan caasimaddu maanta sidoo wax u qabta oo daacada oo aqoon leh maanta u baahan tahay